وأيام وأيام وناكسن ودرارة سويا الكفان لي كل فاقين هاي تاسو دليا دبد بددكين ودبالدا كسو دويان goobaha xafladaha ama samarinada xaafadaheena meeshii aad martidba waa ayaanta ishaadu qabanayso fariimo muujinaya wacnaanta maalintani leedahay waa maalinta aad arkaysid madaxdii waddankeena oo ubax dhigaya taalooyinka kuwii soo halgamay taariikhda galay dhismaha dhagaxtuur waa dharaarta si gooniya dhaayaha loola raaco ee SYL xaawataako ama sayid maxamed taalooyinkoodii lagaag dhawaado daljirka dahsoon waa subaxa barbaartaynu sawirwadaa ku ahaadaan ee hobolladuna hab riwaayadeed iyo heeso doorkooda ku muujiyaan isweydiiyo maxaa sidan loo yeelayaa maxaa darbiyada dalkeena midabada buluuga ayaa xidigta cad loogu xardhayaa oo gobollada dalku u dabaaldegayaan hablaha dalkeennu maxay dharaartan dhabankooda intay dhaashi u diidaan ay astaamaha waddankeena wejigooda u soo marsanayaan waa maalintii geyigeenna qayb ka mid ihii gobonnimadiisa helay gobonnimadaasi sahadyad kumay imaan boqolaal rag ah ayaa u godgalay gabdho tiro badan ayaa u goblamay oo dad xasaanad leh baa xabsiyada loo dhigay qof walbaaba xeelad buu xorriyaddeena ku raadiyey mid baa qalin ku dagaalamay mid baa qori intuu qaatay quwaddiisa adeegsaday kuwaa dhaqaale dhiib halganka ku dhiirigelinayay dibadaha kuwaa intay u dhoofeen diblomaasiyad wax ku doonayay qaar baa dar ilaahay iyo gobonnimada dalkeenna intay iyaguna u duub xidheen 20 sano u darwiishtamay halgamayaashaas caawa laga hadlay oo naftooda u soo huray hadday ahaayeen kuwii waqooyi gobollada waqooyi iyo hadday ahaayeen halgamayaashii halyeeyadii gobollada koonfureed waxay ka midaysnaayeen dhowr arrimood waxay ka midaysnaayeen gumaysi diid waxay ka midaysnaayeen gunnimo diid waxay ka midaysnaayeen quursi diid in qofka Soomaaliyeed uu ogolaado in laga sarreeyo in dawladihii Yurub ay ku heshiiyey inay Afrika yimaadaan bacdama ay midaysnaayeen iyagu ay ku midoobeen inay Afrika yimaadaan oo u qaybiyaan qabiilo iyo dhaqamo iyo diimo ay u qaybiyaan oo ay muujiyaan inay ka sarreeyaan ummadaha Afrikaanka ay u yimaadeen waxaa diiday halyeeyadeennii waxaa diiday halgamayaasheenii ayaa diiday waxaana mideeyey kuwii gobollada waqooyi ee waddaniyiinta ahaa iyo kuwii gobollada koonfureed ee waddaniyiinta ahaa waxaa mideeyey inay diideen gunnimo inay yidhaahdeen Soomaali gun ma aha waa gob Soomaali qof kasta meel kasta ha ka yimaado igama sarreeyo waa la simana waa jeerkii Juun 26 iyo Juulaay 1 labadii dhinac ee xoroobay inta la mideeyay dabadeedna la dhidbay Jamhuuriyad Soomaaliyeed muqdisho madasheena laga dhigaye maanta waa dharaartaan gobonnimada dhalineen calankeenna dhidibne عليهو هادعين هديلين عليهو هادعين هديلين وليغا ديسنو xusuus awgeed waa yeelkii waagaa joogay waa ayaanta ishoodu ilintu isku soo taagto ee sidii dhallaankii ilmadu ay tibiq ka tidhaahdo waa maalintii u horeysay ee tirsiga dawladnimadeennan 59 jirsatay ay soo bilaabatay oo waa habeenkii Muqdisho ay martigelisay kumanaanka Soomaaliyeed ee cidhifyada arlaayiga dalkeena ka kala yimi 7 dal oo duwalka caalamka ka socda waa maalintii Muqdisho hambalyo awgeed ay noogu yimaadeen markaasoo 114 madfac oo suuradaha quraanka ka turjumaya lagu soo dhaweeyay adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badan ay nagala joogto
maraka ka ahaado inaynu jecel lahay shucuubka adduunka inaan wanaag xiriir wanaagsan inaynu la lahaan. aadan cabdulla cismaan waa dharaartii uu Soomaalida horteeda hor yimi oo dhagahooda maqashiyay dhawaaqii xorriyadda. maanta waxay nahay xor, talada iyadana gacantana ay noogu jirtaa. waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor. inkastoo samaan dheer uu ka soo wareegay wakhtiga, misna weli aadan waa astaan qaran oo quluubteenna ku qarsoon. sawirkiisuna waa kaa suran xafiiska madaxweynaha. wadajir iyo walaaltooyo iyo halgan loo dhan yahay oo dhinacyada la isku hayo ayay awoowayaasheen ku gaadheen dhabbada xorriyadda aynu maanta ku taamayno. mar kale ayaynuna wadajir iyo wada socod dib ugu dhisi karnaa kuna difaaci karnaa dalkeenna. 59 sano ka hor yaa aabbayaasheen dhulkay ka qaadeen, midnimadii soo celiyeen, dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen. anugu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo, in aan noqonno kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aanu kula dardaaranno dadka waalaheenna reer waqooyiga ah ama Somaliland inaan ka tagno taariikh, carruurteenna uga tagno mustaqbal wanaagsan, caalamka aan la jaan qaadno annagoo mid ah. maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto horumar iyo hadday noqoto siyaasad. laakiin annagoo kala dhantaalan, annagoo kala maqan, waxaan ku dambeynaynaa carruurteenna sidii hadda ay yihiin inay qaxaan, qaxootiye ay ku jiraan, badda ay ku baaba'aan, xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan. anugu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo. anugu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar, siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dawladaha dariska iyo caalamka. qof kasta oo Soomaaliyan waajib ayaa ka saaran inuu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliya. Iskutir sanada